tan iyo markii Ruushka uu duulaan toosa ku qaaday dalka ay dariska yihiin ee Ukraine dunida dacaladeeda taageero kala duwan ayaa ka imaanaysay inkastoo lagu kala qaybsanaa xilliga imaanshiyaha taageeradaas. Ukraine weli waxay la daalaa-dhacaysaa mid ka mid ah quwadaha adduunka ugu waaweyn inay hortaagan tahay muddo ku siman 60 cisho iyo dheeraad marka loo fiiriyo daryanka rasaasta culus iyo dihaalka ka muuqda dadkeeda. hadda Canada waxay mar kale muujinaysaa muhiimadda ay u leedahay inaysan jirin meel cidlaaw ay uga tagi karayso Canada dadka reer Ukraine oo haatan wajahaya colaad culus oo kala dhaxaysa dalka Ruushka. Ra'iisul wasaaraha dalka Canada ayaa safar lama filaan ah ku tagay dalka Ukraine oo weli ku socdo dagaalka Ruushka iyo isaga u dhaxeeya. inta uu ku sugan yahay dalka Ukraine, ra'iisul wasaaraha Canada waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas'uuliyiinta ugu sarreysa dalka oo ugu horeeya madaxweynaha iyo marwada koowaad ee dalkaas. ra'iisul wasaaruhu wuxuu joogaa Ukraine si uu la kulmo madaxweyne Zelensky oo uu xaqiijiyo taageerada aan kala go'a lahayn ee Canada ee ay siinayso dowladda iyo shacabka Ukraine, ayuu yiri agaasimaha isgaarsiinta ee ra'iisul wasaaraha dalka Canada Cameron Ahmed. mas'uuliyiinta Ukraine waxay sheegeen inaysan marna muhiim u arkaynin inay ka tanaasulaan mowqifyadooda duulaan weerarka. taageerada caalamka uga imaanaysana ay tahay mid si weyn u dhiirigelinaysa. sidoo kale saraakiisha dowladda Ukraine waxay sheegeen in ra'iisul wasaaraha Canada uu indhihiisa ku arkay dhowr magaalo oo ka mid ah dalka oo ay burburiyeen cadowga waxa ay ugu yeereen Ruushka ka soo duulay. Irpin oo ah magaalo u dhow caasimadda Kiev ayaa laga dareemay burbur xoogan kadib markii Ruushka uu bilaabay dagaalka uu ku hayo Ukraine 24 February. magaalooyinka qaar oo ku yaala dalkaasi intooda ugu badan Ruushka dhulka ayuu la simay. dadkii deegaamaysanayay ee deganaana qaarkood waa ay geeriyoodeen halka qaarkoodna naftooda ay la baxsadeen. dhaawac ayaa jira marka loo fiiriyo muuqaalka xun ee magaalooyinkaasi ka imaanaya. maamulka Ukraine ayaa Ruushka ku eedeeyay inuu xasuuq ka geystay guud ahaan dalka Ukraine. Moscow way diiday eedeymahaas. booqashada ra'iisul wasaaraha Canada Trudeau ayaa ku soo beegantay iyadoo ay booqatay marwada koobaad ee Mareykanka Jill Biden, taasoo safar aan hore loo sii shaacin ku tagtay Ukraine. waxayna la kulantay marwada koobaad ee Ukraine iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda ka tirsan. waxay mar kale halkaasi ka qirtay taageeradooda ku aadan barbar istaagga shacabka Ukraine oo haatan halgan nololeed ugu jira sidii ay isaga dhicin lahaayeen cadowga manaxaha ah ee ka soo duulaan tagay Moscow.